dhulka carbeed ee la haysto biyuhu waa sirta nolosha. barafka daboolan ee biyeeya webiga qadiimka ahina waxay u taagan yahay mid ka mid ah qasnadaha ku duugan dunida la yaqaano, iyadoo deegaankani dhulbadeedka ahi uu haddana dhanka kale soo bandhigayo xilligan xayawaanka ku qarsoon noloshiisa bariga. marka cadceedu diirimaad ka samayso buuraleyda sare ee barafku ku gidaaman yahay waxa dhalaala oo hoos u da'aya buurahaasi, mana aha taariikhda ay huwan yihiin inay nolosha ay sameeyaan oo keliya midda uu deegaankiisa leeyahay, laakiin dhanka kale waa isha biyeysa waadiga ka hooseeya. webiga Urdun oo isku xidha laba qaaradood wuxuu isu hayaa saddexda harood ee waaweyn oo kala ah badda dhimatay, harada Dabariya iyo weliba Xula oo dhacda waqooyiga dhulka carbeed ee la haysto. harada Xula waxay martigelisaa 100,000 kun oo noocyada shimbiraha ah, iyadoo marin u ah shimbirka xuurta loo yaqaano oo sii fadhiista marka uu ku jiro safarka dheer ee uu ugu soo haajirayo qaaradda Afrika uguna sii jeedo dhinaca Yurub. 10,000 kun oo shimbirood ayaa diga oo haddana ka duula badlamoodka Xula iyagoo ka helaya biyo saafi ah oo ay sii galaan iyo cuntadii lagaba maarmaanka u ahayd ka hor inta aanay sii wadanin socdaalka ay ku beegsanayaan dacalka koonfureed ee qaaradda Midow oo sidoo kale ah dacalka u shisheeya duni dhuleedka aynu naqaano. dinadabadeedka iyo dugaagga kale ee harada ku nool dhan waxay ka faa'iideystaan xilliga shimbiruhu fadhiistaan halkaasi, iyagoo qabsanaya oo cunto ka dhiganaya shimbiraha dhaawacma iyo kuwa xanuunsada ee ka hadha safarkii ay ku jireen. waxaana uu dinadabadeedku isku qarinaya qasabka qoyan dhexdiisa si uu u sii wato ugaadhsigiisa, xilli ay xuurta cadi si wada jira kalluunka uga sii guranayso haradaasi. dhulka bannaanada ah marka uu ku leedsado ayaa shimbirkan oo baalashiisu ay ilaa 3 mitir gaadhaya oo isu diyaariyaa safar dheer oo ugu laabanayo dhanka qaaradda Yurub. degenaansho buuxa ayaa ku soo noqda harada Xula marka uu dhammaado socdaalka hijrada ah ee shimbiruhu, inkastoo ay haradu sidoo kale sii martigeliso xayawaanaadka kale sida lo-dibadeedka oo sanadka oo dhan halkaa ku dhaqan, iyagoo marka ay dabaashaan biyaha haradaasi isku xoqa dhirta madhooleyda ah ee mandaqadaasi hodanka ku tahay, taasoo iyana fursad kale u abuurta xayawaanka doofaarka oo midhaha khudradda ee ka daadanaya dhirta ay lo-dibadeedku isku xoqayaan ay u tahay cunto ay doofaradaasi ku noolaadaan, xilli uu doofaarka beriga ku nooli heeganna u yahay inuu dugaagga kale ka ilaaliyo dhashiisa, oo marka ay bannaanka ka dhammaystaan ciyaartooda degdeg ugu noqonaya geedaha dhexdooda si ay uga nabad galaan dugaagga doonaya inay ugaadhsadaan. diinbadeedka ka soo baxaya biyaha qabow ee harada Xula wuxuu isu dhigayaa cadceedda isagoo ku jira nasasho ay digtoonaani ku dheehan tahay oo haddana ku meel gaadh ah, iyadoo inta ay qoraxda isku diirinayaan oo diinka u ah waqti muhiim ah, haddana uu jiro dhinac kale oo dhibaato la daba jooga, kaasoo ah digaagadda biyo ku noosha ah ee midabkeedu madowga yahay oo diinka dushiisa ka goosanaysa cadka hilibka ah ee dhintay iyo qolfaha saaran jidhkiisa.
sanadku waa sii soconaya ugaarsiguna waxa uu yahay mid xilliga diraacda ee guga dabadiisa ah kasii bilaabanaya harada xuula webiga urdun ayaa marka uu ka tallaabo harada xuula waxa uu sii marayaa masaafo 25 kilomitir si uu ugu biyasho harada dabariya ee milixleyda ee dhacda masaafo 400 fuud ka hooseysa badda isagoo webiga urdun uu maro mandaqada joog ahaan ugu hooseysa adduunka oo dhan ahna mandaqad cimiladeedu kulushahay oo inta badan biyaheedu samada u uumi baxaan waana halka aynu u naqaano badda dhimatay ama baxrul meyd taasoo ay fadhiyaan biyo milixaysan oo aan la cabbi karin ahna biyo macdanaysan kuwaasoo 7 jeer ka dhanaan biyaha badda mana jiro noole ku dhex nool marka laga reebo bakteeriyo awood leh oo la ogaaday inay ku jirto nolol adag ayay ku jiraan xayawaanka ku dhaqan deegaanka cimiladiisu kulushahay ee ku xeeran badda dhimatay waxayna dawacada saxaraha ku howlan tahay sida ay u heli lahayd cunto borotiin leh oo nolosheeda ku filan iyadoo markasta oo xayawaanka halkan ku nool ay cimiladu ku sii kululaato ay ku dadaalaan sida ay u heli lahaayeen khudrad iyo cunto borotiin leh taasoo u samaysa inay u sii adkaystaan ama xamilaan kulaylka xaddiga leh ee mandaqadaasi marka deegaankaasi kulayl daraadii u noqdo meel cidlo ah dabagaalaha oo taxadar ku jira wuxuu bilaabaa inuu caleemaha qalalan ka gurto geedaha galeedka oo baalashiisu gaadhayaan ilaa 7 mitir ayaan dhibaato kala kulmayn inuu dafo oo la boodo xayawaanaadka kale ee buuraha dushooda u fuulay si ay hawo ka qabowta hoose u helaan isagoo galeedku qaadan kara bakaylaha iyo xitaa dawacada buuraleyda dhaadheer ee ku taala deegaankaasi waxay haddana wax yar uun ka sarreysaa joogga badda maadaama ay markooda horeba uu aaggaasi yahay dhul aad u hooseeya goodirka lab ee halkaasi ku noolena waxa uu tartan cudud sheegasho ugu jira sidii ay isaga xulayaan goodirka yeelan doona amarka u dambeeya ee buuraleydan qalalan ee cimiladeedu kulushahay halka cawsha dhadigna ay hoos uga degayso buurta si ay u daaqdo caleemaha iyo curubta hore ee laamaha geedaha ku yaala iyagoo isticmaalaya asluub maskax ku dhisan oo ay cawshu ka dhaxashay hooyadeed isla markaana tacliimanayso tayar ee ay sii dhashay biyaha harada xuula waxay sanadka oo dhan waraabiyaan xayawaanaadka halkaasi ku dhaqan oo ay ka reebto haraadka marka la gaaro xilliga xagaaga ee qaaradda Yurub waxaa dhacda in buuraleydeedu barafowdo xayawaankuna ay ugu horeeyaan shambiruhuna ay u soo haajiraan dhanka koonfureed ilaa ay soo gaaraan webiga Urdun iyadoo ay harada xuulana ku soo dhaweyso shimbiraha cuntadii iyo nasashadii ay u baahnaayeen ka hor inta aanay mar labaad sii wadanin haajiraadooda dhanka koonfureed ee ilaa ay ka gaarayaan gobolka geeska Afrika halka qaarkoodna sida shimbirta cad ee xuurta ah ay u sii hayaami doonaan ilaa ay ka gaadhaan wadanka Koonfur Afrika shimbirka kale abulaqlaqa ee jecel hilibka kalluunku wuxuu muddo ku sii nagaadaa harada dabariya iyadoo nolosha biyood ee haradaasi leedahay ay u egtahay nolosha taalla harooyinka waaweyn ee bariga Afrika
dacalka sare ee harada Dabariya waxaa ka muuqanaya mid ka mid ah arrimaha taariikhiga ah iyadoo shimbirka abuulaqlaqa ah oo dul mariyay dhulkaasi muddo kumanaan sannadood ah xilliga uu ku sii jeedo dhanka qaaradda Afrika iyadoo qorayaasha arrintan dabagalay ay caddeeyeen in shimbirkan yahay mid yaqaana waqtiga saacadda isla markaana go'aamiya xilliga uu hawada ku jirayo. shimbiruhu waxay kor duulaan biyaha webiga Urdun oo ay dhanka hoose ula foorarsadaan ilaa ay ka gaadhaan biyaha badda dhimatay waxaana jirta inay shimbirahani si weyn u yaqaanaan biyaha dhanaan ee haradaasi leedahay mana hungureeyaan inay cabbaan. xilli ay shimbiraha yarari si weyn uga fiirsanayaan socdaalka lagu jiro si ay u bartaan waddada ay sanadlaha u mari doonaan ee geyn doonta bariga iyo bartamaha qaaradda Afrika. cimilada kulul ee mandaqadu marka laga tago dhibaatada ay ku hayaan xayawaanka ku nool haddana waxay keentaa inay biyaha badda dhimatay ay uumi baxaan xilli ay calaamadaha ka muuqda buuraha ku gadaaman badda milixleyda ahi ay muujinayaan heerka ay sanadba ka xiga joogeen biyaha badda dhimatay iyadoo cimilada isbedelaysa ee dabaylaha iyo daruuraha guuraya wadata ay ka dhigayso mandaqada webiga Urdun mid isbedelo badan sameynaysa. waxa halkan ku dhacayaana waxay xiriir la leeyihiin masaafo u jirta ilaa 800 kilomitir oo dhanka waqooyi ah. barafka ku daboolma buurta Sheekh waa mid ka mid ah nolosha asaasiga ah ee webiga Urdun. dabayluhu waxay kor u kacayaan samada sare waxaana ka samaysma daruuro dhumuc leh muddo yar ka bacdina daadku wuxuu si kadisa uga soo dhacaya dusha sare ee buuraha engegan isagoo gaadhaya meel kiiloomitir badan u jirta halka ay hogashu ka da'ayso. daadadkii ay soo rogmadeen waxay saxaarihii ka abuureen nolol cusub iyadoo noocyada kala duwan ee ubaxu isku dabooleen dhulkii saxaaraha ahaa waxaana muuqaalkani yahay mid muddo sii jiraya ka hor inta aan hanfiga iyo cimilada kulaylka cadceedda wadataa aanay qallajin ubaxan iyo ramaaskan ka soo baxay. dhanka kale ee webiga Urdun waxaa ka muuqda caalam kale oo shimbiruhu ay soo maraan safarkooda labaad ee ay ugu sii jeedaan dhinaca qaaradda Yurub iyadoo shimbirkan yari uu yahay mid ka hadhay ama ka lumay qaraabadiisii wuxuuna halis u yahay kalluunka gaajaysan ee soo dhex gurguuranaya biyaha qabow. shimbirahani marka ay dib ugu soo noqdaan qaaradda Afrika kuna sii jeedaan dhanka waqooyi ee dunida waxay nasasho ku qaadanayaan buurta Sheekh oo ah buur qoyaan badan oo deegaankaasi ku taala iyagoo shimbiruhu cayayaanka ka dhex guranaya cawska iyo dhirta kale ay buurtaasi qaniga ku tahay. marka ay ka duulaanna waxay u baxayaan dhanka hawada sare iyagoo kor heehaabaya qaboobaha saaran buurta oo qoyaankeedu nimcada uu soo saara ay faa'iido u tahay xayawaanaadka ku dul nool gaar ahaan doofaarka. halkanina waa meesha uu ka bilaabmo webiga Urdun oo sidaynu hore u soo aragnay biyihiisu ku dhamaadaan badda dhimatay ama Bahrul Mayt ka hor inta aanay biyahaasi oo ka soo dhacaya ciribka sare ee buuraleydu aanay ku daadan bagcadda ugu joog hooseysa guud ahaan dunida aynu ku noolnahay. biyahaas oo inta ay marayaan marxaladda iyo masaafada dhuleed abuura nolol wanaagsan oo soo taxnayd muddo qarni ah isla markaana daaha qaada duni ka qarsoon caalamka intiisa kale.